waxyaabo kale oo fara badan waxaan rabaa marka inaan la wadaago halkan maanta ku soo fadhiistay in maalintii aan soo bilownay arrinta ah in aan bedelno calanka iyo astaanta qaranka oo u ololeyno oo ceebaha iyo ciladaha uu leeyahay banaanka aan keeno 2 bilood markii la joogay oo la arkay arrintaani in ay san ahayn arrin lagu hor imaan karo arrin xaqiiqa arrin run ah arrin qofna uusan diidi karin dadkii samaystay iyo dadkii u adeegayay way la soo xiriireen waxaa la yidhi Sufyaano waxaan rabnaa inaad qaadatid lacag $2 milyan $2 million qaado ams programkaana kaar arrintan calanka iyo waxaan iyo kaar dhigo ilmaha leedahay reeraa leedahay farxaas la tahay ilmaha iska biilo guriga iska iibso raaxayso nolosha kaar waxaan faraha ka qaad waadiid because qadiyada tala ku nool iyo qadiyadaydu ma aha mid la iibsan karo waadiid markaan diiday muddo kadib waxaa dhacday in xibno ka tirsan dawladda ma aqaan dawladda oo dhan inay isla ogeyd iyo qaar ka tirsan inay ahaayeen rag baa soo wacay telefoonka ugu soo wacay yiri waxaan nahay dawladdan ka tirsanahay waxaan ku siinaynaa xubin agaasimi xubin aan ku siinaynaa markii wasiirkii hore arrimaha dibadda uu joogay xilka waxaa la yiri waxaan ku siinaynaa xubin baan ku siinaynaa agaasimi baan ku siinaynaa arrinta faraha ka qaad waxaan ku iri $2 million aan diiday agaasimi $2 million na waa fahmi kartaa inta isu jiraan difference u dhaxeeyo arrintaasi markay halkaas tagtay waxay go'aansadeen marka in dadkaasi ay weeraraan yihiin marka ugu horeysa aan idin sharxo dadkaas waxa fangareynaysa hay'adahan Talyaaniga uu leeyahay ayaa lacagta bixinaysa waxay lacagta siinaysaa hay'ado kale oo jira ay lacagta siinaysaa hay'adahaas markay lacagta siisana weerarku halkaas ka imaanaya hadda maantay waxa soo cusboonaado emergency arrintan aan soo galay in baraha bulshada la soo dhigay Sufyaan Sheekh Axmed waa nin dilaa ilaa iyo waxa la tirinayo ma 7 mise waa 9 qofood soo dilaan arrintaas daraadeed aan soo fadhiista runtii waa wax lagu qoslo balse waxaan rabaa waxay leedahay runtii taxadirkeeda inaan qaato oo ah taxadirkeeda markaan shir galnay waxaan go'aansanay inaan live kan soo galo bulshada Soomaaliyeed inaan la wadaago arrintan waxaan rabaa videogan inta aad ku jirtid waa muhiim waa wax loo wada digniin loo wada ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa inaad share gareysaan oo ku share gareysaan dhammaan meelaha aad ku share gari kartaan waan idinkaga mahadcelinayaa runtii waa arrin xasaasiya waa arrin muhiima waa arrin la rabo in lagu dhaawaco qaranka Soomaaliyeed ama loo diido qaranka Soomaaliyeed oo hor u socdo maanta marka arrintaas soo gashay arrintaas daraadeed u safan marka waxaan rabaa inaan idin sheego taariikhdu waxay ahayd wixii aan soo marnay oo qarinoona bulshada u sheegin iyo qaybo kale oo aniga noloshayda kamid ah saad u fahantaan okay markii agaasimo qaada la yiri wasaaradda arrimaha dibadda iska diiday waxa la bilaabay marka weerar in lagu soo qaado weerarkaas oo ah in la iga suucay la yiraahdo markii ugu horreysay waxa weerarkii ugu horreeyay wuxuu ahaa in lagu soo weeraray in aan nin western ku soo adeegsaday la yiraahdo tayga uu wato iyo suudka uu wato iyo balfiir waa gaal waa shaydaan waa sidan in sidaas la igu dacayday arrintii idaad waa shaqay weysay markay halka shaqay weysay haddana dhinaca kale la jeeday waxa la yiri ninku waa al-shabaab waa takfiir ilaa sawirkayga inta la qaaday sawir al-shabaab qoryo wata la gali ayadan waa shaqay weysay markii intaas ay sameeyeen waxaa timid marka in la weeraro lagu soo weeraro arrin khayri ah oo islaamka u fiican oo caadooyinka islaamka qurqaadooda ah aniga iyo xaasaskayga guurka aan u soo bandhiga bulshada si aan tusaale ugu noqdo in lagu weeraro asaga oo la laftigiisa cid loo dhigo oo lagu caayo oo diinta loogu gafo oo dogtihiin dad badan diinta loogu gafay ayadiina waa socweys waxaa soo gala marka in personal attack marka waxa la yiri marka ninkan mar hadii aanan dili karin dhambaalka waa inaan dilnaa dhambaal wadaha if you cannot kill the message kill the messenger haddaanan dhambaal ka dili karin dhambaal wadaha dil macnaha doodii tala ku nool ahayd calanka in la bedelo oo la yiri 2 milyan ku qaaday iska daa oon diidnay oo la yiri agaasimo ku qaaday iska daa aan diidnay doodiina aan cidna celi karin shacabkii Soomaaliyeedna ay fahmeen oo qaateen waxa ka dhalatay in ay timaado in shakhsi binaadam soo horsaakay shacabkii Soomaaliyeed inay qaateen haddii shacabkii Soomaaliyeed marka qaateen
dadkaasi waxa meesha dhigta markii hore dadka qortay constitutionka ama dastuurka gaalada ee meesha yaal dadka qortay heesta qaranka iyo astaanta qaranka in shaydaan lagu caabudo shaydaankii meeshu joogaa ma bixin weli shaydaankii weli meeshu joogaa ma bixin waxaan rabaa qof kasta oo islaama oo dhageysanaya inuu sii shirkireeyo oo beejajka sii geliyo si shacabka Soomaaliyeed u dhageysto waa arrin runtii muhiima waa arrin khatarteeda leh waa arrin aan ugu talagalay in uga jawaabo su'aalo badan oo banaanka yaal iyo waxyaabaha maanta la soo dhigo social media oo ah Sufyaan 9 qof oo soo dilay arrintii markii ay waxba ka qaban waayeen markay arkeen in hal ekaatee dambaalkan ah calanka in la bedelo iyo astaanta qaranka in la bedelo haybta korka in la baabi'iyo in taariikhdii dib loo qoro oo la soo saaro waxyaabo badan oo qarsoon oo aysan rabin in banaanka la keeno waxay go'aan ku gaareen in aniga la soo weero oo la yiraahdo haddaanan dili karin dambaalka uu wado Sufyaan Sheekh Axmed iyo tala ku nool kooxdaasi haddaanan dili karin asaga aan dilo marka waxaad qiyaasi kartaan marka khatarta ay leedahay in social media la soo dhigo oo ay soo dhigto group ay hogaaminayso BBC-da waxay sameeyeen waxay contract la galeen wariyaal ka qaybta BBC-da Soomaaliga u shaqeysa wariyaalka qaybta BBC-da Soomaaliga u shaqeysana waxay heshiis la sii galeen wariyaal kaleeto oo Soomaaliya oo ku faafsan caalamka dhinacyadiisa dada lacag la siiyay waxaan lacagta loo siiyay in aniga magaca la iga dilo haddaan ba aniga la dilin ba inaan magaca la iga dilo waxay sameeyeen marka waxa lacagta fangareynaya hay'adda la yiraahdo saxaafadda caalamka ama ay isku tagaan journalism ku isku tagaan waxa lacagta fanka sii bixinaya hay'ad Talyaani soo Talyaaniga lacagtii bixiyay warar kale waxay leeyihiin xataa wad Mareykanka ku jira oo hore anigu aan xabsi ugu jiray dhowr sano 4 sano ka badan marka waxa la yiri arinta iyada ah ragaasa wata okay banaanka la soo dhiga maanta waxa la yiri ninkii Sufyaan ahaa ninkii aqoon-yahankii ninkii professorka ahaa ninkii afar xaaslaha ahaa 9 qof uu ka takhalusay 1991 dadka aniga yaqaana aan rajilibana jacadaan ku dhashay laakiin jilib aan ku soo koray jilib 1991 ka soo tagay dagaalku markii Soomaaliya uu ka qarxay oo siyaad bar soo baxay ayaan soo galay Muqdisho nin tababar ciidan lama ahayn nin baalkii hub qaadama ay waligiis jabhad kama soo shaqeynin ciidan ma wadanin nin yaraana oo probably markaas qaan gaaray 16 years 17 years jira intaasan jira maanta marka waxa la taagan yahay ninkii 17 sano jiray 1991kii 9 qof uu soo dilay asaa dilay hada waa nimanka la sheegayana nimanna de ma aqaan waxay yihiin laakiin waa fahmi kartaa macnaha meesha ku jira marka waxa fangareynaya BBC-da oo lacag ka helaysa hay'ado Talyaani intaan hubo Talyaani ujeedadu marka waxay tahay waxa la yiri maamaha baa jirta English oo la yiraahdo if you cannot kill the message kill the messenger hadaadan dhambaalka dili karin dhambaal wadaha dil maadaama la dili waayay oo ay doodka keeni waayeen maadaama ay difaaci waayeen maadaama wax dooda laga keeni waayay in calanka Soomaaliya uu yahay calan lagu caabudo shaydaan maadaama ay difaaci waayeen in calanka Soomaaliya uusan sameeynin cawaale maadaama ay difaaci waayeen in calanka Soomaaliya uu yahay calan 1989 Soomaaliya yaalay intaas markay difaaci waayeen oo ay caddaha maanta banaanka soo dhigna astaanta qaranka ee Soomaaliya calaamad Kristiyaaniga ku jirto tanna ay tahay calaamad shaydaan dadkiina ay qaateen go'aanka la qaatay wuxuu yahay marka Sufyaan la burburiyo marka la raskal Sufyaan aan dilno Sufyaan marka aan ka takhalusino xageen ka marnaa well Muqdisho ma joogo oo qorin loo soo dhimaayo hadhow inta igu dilaan dhimaayo al-shabaab aa dilay because usually say u dhacdo saas waa Muqdisho marka joogtid iyo Soomaaliya hay'adaha qof soo siinaysa hay'adahaas qalaada lacag bixinaayo qofkaas la soo cunaa lagu waa la soo cunaa hadhow marka dhimatana waxa leeyahay waa al-shabaab aa dishay ninkaas we all know that taariikhda soo wadagna kulligeen hadan Soomaalina marka wadan waxaan joogaa xoogaa arrintaas aysan suurtagal ka ahayn waxa la yiri marka maadaama ay saas tahay asaga sumcadiisa hal dilo dadkaas macnaha dad dhintay hadda ma aqaano runtii xaqiiqdu waxay tahay hal la soo qaato waxa la yiri ayagana dusha loo saaro
intaas la yiri marka dusha loo saar la yiri ujeedada laga rabo waxay tahay oo ugu muhiimsan kow in aniga dhibaato la geysto shakhsiyan naftayda la damage garay macnaha lay dilo lay dhaawaco wax lagu sameeyo haddii intaas la waayo oo intaas ay suurtagali weyso in markaas kadib sumcadeeda la dhaawaco oo shacabka Soomaaliyeed ee fahmay waaqiciga jira ay cabsadaan ila markastoo qof islaami uu soo baxo wadankiisa inuu difaacdo oo soo baxo diintiisa inuu difaacdo waxa lagu soo diraa dadkii kaleeto dadkii la cabsi galiya marka cabsi galiskii way marka in la cabsi galiyo la yiraahdo aamus shacabka lagu diro dadkaas dabcan ka dhintay lagu soo jeediyo la yiraahdo ninkan waa nin noocaasa fangor buu qabaa wadadu soo dilay waxaas oo dhan ila caydi kala dhawaa laga soo gudbay maalin waxay hadal shabaab aan ahay oo niman argixisa dhexda la igu soo sawiray oo hub wata maalina waxay ahayd in la yiraahdo waa gaalo ninkan taay waxba wata intii baa ku soo guulisay way maanta marka waxay taagan tahay in BBC da la soo siiyo contract wariyaal BBC da ka socda ay wadaan programkan in Sufyaan Sheekh Axmed lagu eedeeyo sumcadda looga dilo iyo sharafta iyo karaamada looga dilo in uu dilay 9 qofood 1991 Soomaaliya iskaga soo cararay qurbaha aaday waxa kale soo socda qaar kalena tan laftirkeeda iska dhaafay qaar kalena waa soo socdaan arrimo la midna waa imaanaya waxaan ka codsanayaa shakhsi kasta oo islaam oo Soomaaliya oo dhageysanaya si page faafi arrintan page-ka kala sii gali si dadku u daawado oo ay u gaarto dadka waayo waxaan difaacanayno waa diinteena islaamka waxaan difaacanayno waa wadankeena qofkii u istaaga diinta islaamka oo yiraahdo dastuurkan ma rabee midka islaamka aan rabaa wax way waa la soo weeraray weerarkuna maanta Sufyaan ku socda haddaan marka maanta garab idinka waayo ogow mid kastoo diinta u istaaga halkaas la dhiganaya gaala soo weeraraysa hay'adaha soo weeraraya hay'adahaasna waa ku tagaan maalinba mid la baxaya ilaa wadankiina marka ugu dambaysa wixii raba laga samaysto so waxaad samaysaan intiina ku jirta hadda please share this video dadka kale share kare aan wada marka waxaan rabaa inaan idin sheego qiso kaleeto oo aniga shakhsiyan ugu saabsan taariikhda ku saabsan aniga saad ogtihiin baa quraan ku sheegay jaamacado badan oo Mareykan ku jiraan soo dhigtay kuwa banaankan waa soo dhigtay Mareykanku waxay ku bixiyaan lacag sanadkii $230,000 waxbarashada lagu bixinay waxay ku tala galeen in ay iga dhigtaan their man ninkii macnaha ayaga shaqadooda u qabanay markaan joogo Spain Madrid waxa yimid niman u shaqeeya dawladda Mareykanka oo ka tirsan dawladda u shaqeeysa piano waxa rabnaa in anaga nala shaqeyso oo sheegay waxaan ku idhi ma xumayna nala shaqeeyo laakiin shaqadaan idin qabanayo saahi waxa weeyaan in aad qabato shaqo ama aad u shaqeyso arrin aad runtii samayso in aad la dagaalanto argagixisada ani waxaan ku idhi dhageysta argagixiso la dagaalan iyo macnaha ma rabo qaar ayaa jira aan rabin meeshaan inaan ka iraahdo oo xaqiiqa waxaan ma rabo argagixisa dagaal waxa isku ma jiraani shaqo kale ii dirsada waxa la yiraahdaa adiga duqal ma tahalay 230,000 sanad kasta kugu baxdo waxbarashada hadda oo Madrid joogtana 230,000 waxaan sii saarna 100,000 oo kale deganaanshaha iyo guriga aan ku dejinay meeshaan ku dejinaa ma waxaan u maleysay leeyahay waxbarashadaas ilmaheena xataa ma helaan ninkii ila fadhi wuxuu yiri aniga wiilkayga xataa ma helin waxbarashada yeeshay how do you think in just tell you go ina iska baxaysido faraha ka qaadano shaqada ay qabsanaysa mise waxaan ku barnaartaa wadankaaga inuu laabto anagu noo soo weerartay arinta si kasta ahaatee waa diid waxa u dambeeyay in la xiro dambiye la ii sameeyo xabsi la igu tuuro xabsiga la geliyo waxa la jiray incommunicado shakhsi binaadana oo is arkaysaanay ma jiro adiga iyo ilaaha bas mudan halkaas ku jiray jirdila la igu sameeyay waa la soo garaacay farayga qaara jaban qaarkii waxa laga yaabaa markaan saas iraado aragtaan fartaan iyo farahan iyo feeraha iyo waxaasna waa jaban yihiin gudaha xabsiga dilka dhexdiisa la igu geystay oo ahayd inaan la igu qasbo in aan u shaqeeyo ayaga ana wadi 17 qof aan ku galnay meeshaas maanta laba ka nool aniga iyo nin Yamaniya ka nool soo macnaha taas aad ka fahmaysan wuxuu yahay ma ay shakhsi lagu cabsiinayo dhimasho because dhimasho waa soo arkay midabadeeda waana dhiman laakiin midabkeedan soo arkay ma ay qof lagu cabsiinayo markii dambana waxaan heshiis ku gaarnay ilaahay yaa ii sahla taas hay'ad la yiraahdo care oo Mareykanka ka jirto u doodo xuquuqda islaamka ayaa ii dooday باذن الله hay'adii markii banaanka waxa lagu heshiiyay in ninkan Soomaaliya lagu celiyo 10 sano aan waxba qorin waxna akhrin siyaasadna ka hadlin 10 sano inaan waxna qorin waxna akhrin siyaasadna ka hadlin 10 ka sano waxay ugu dhamaaleed 2022
waxay kaloo go'aansadeen marka Soomaaliya la keeno maadaama ay ka fududahay in Mareykan lagu dilo in Soomaaliya lagu dilo in Soomaaliya lagu dilo ay u fududahay ayaga in Soomaaliya lagu dilo maalinta la keenay Soomaaliya Muqdisho anigoo qoorta silsilada igu jiraan gacmaha dhan kulligay wada bir ah waxa taagnaa ragaala oo Mareykan oo cadaan ah taagnaa meesha waxa la taagnaa niman askar oo Soomaaliya iyo gaafo nin la yiraahdo oo immigration ka haystay arintaasi waxa sidoo kale familkayga ayaa wuxuu sheegay inaan soo socdo la rabana in la dilo because qadada waa ogeyn lawyer-kayga ay sheegay waxa meesha soo galay airport-ka dhexdiisa Allah u naxariistay Nabadon Axmed Diiriye oo ahaa adeerkay iyo ehelkayga walaalkay ehelkayga kaleeto waa la isku qabsaday ninka anaga wadana iyo anaga wadanayna in la jijiiday noqotay ugu dambeyntii familkaygii waxay awood u yeesheen inay idamiintaan oo ay wadaan ayaan bari ku noqday alxamdulillah ilaa maantana aan ku joogan ku noolahay micnaha taas marka kale aan ku sii daray wuxuu yahay haddii Allah subxaanahu wa tacaala uu qoray inaan dhinto waa dhima laha haddana marka Allah ii qoray dhimanaya laakiin muhiimka wuxuu yahay si kastoo la cabsiyo si kastoo hay'ad lacag bixiyaan si kastoo gaal iskugu tagto hadafka aniga aan leeyahay oo ah in Soomaaliya ay noqoto dawlad islaam ah aanan qori qaadan hal qori aanan qaadan hal qof aanan dhaawacin waa ku guulaysan haddii aan yiraahdo haddaan noolahay haddaan dhintana dad kale oo islaam oo farbadana jiro soo baxay taas wal kama qabo waxaan marka rabaa inaan idin sheego aniga contractigiyan Mareykanka la gol ahayd inaan 10 sano inaan hadlin waajibi waxaan u jabiyay because of wadankayga dhibaatada haysata waa dooro kare naftayda iyo ilmahayga iyo reerahayga quruxda badan iyo gabdhaha quruxda badan qabo waa dooro kare laakiin waxaan ka doortay marka arka dhibaatada wadankayga uu ku sugan yahay xaaladda uu ku sugan yahay iyo gumaysiga nasaare si loo qolo wixiina aan aqaano mas'uuliyadda isaaran mas'uuliyadda isaaran waxay tahay in aan u istaago shacabka Soomaaliyeed iyo wadankayga iyo diinteeda oo jeclahay oo aan diidoon xabsi ugu jiray almost 4 sano Mareykanka incommunicado oo la igu dilay oo la igu jirdilay maantay anoo banaanka jooga inaan ka aamuso waaminka xalawtiga mana sameeynayo waxaan leeyahay marka nimanka BBC do contractiga soo wariyaalka oo ninkan hal cambaare leeyahay wariyaal waa because wariyaalka waxa kale loo leeyahay macnaha in layga maro dhinacii warbaahintii oo haddii warbaahintii loo sheego leeyahay ninkan dad uu soo dilay wariyaal waliba soo dilay dad kale soo dilay hadii la yiraahdo waxa laga yaabaa in la yiraahdo waaw Soomaaliya 1999 waa la soo dilay dhima laha waa dadka dhan Soomaaliya dhan dagaalamaysa in la yiraahdo laakiin hadii la wariyo dilay macnaha nimankii dadkii kale wari waxaan rabaa marka inaan shacabka Soomaaliya la wadaago waxaan ku codsanaa dhamaantiin inta ku jirtaay qof walba si shir gareeyo si message-kan uu gaaro dhamaan bulshada Soomaaliyeed because arrintaani waa arrin diini ah waa arrin loo baahan yahay in loo istaago haddii maanta anigu aan dhibaato soo gaarto ama because of arrintan la igu dilo ama dhibaato kale igu timaado de waxay noqonaysaa haddii la yiraahdo qof walba maalintiisa meeshiisa in loogu yimaado lagu helo haddaan laakiin isgarabsano haddaan isgarab istaagno haddii arrintan laga hadlo oo dadka islaamka ay ka hadlaan haddii waxay noqonaysaa markaas inaan xoog leenahay wadankana difaacno waxaan u reetal ku noqdaan u dagaalamaynana waa difaac diinteena iyo wadankeena waxaan rabaa marka inaan ku soo gunaanado anigu waxaan ahay islamist qof u taagan ama aaminsan in diinta islaamka wax lagu dhaqo philosophy-gayga caqiidadayda dagaalkayga kaas waay si kastoo la cabsiyana dib uga digi maayo anoo xabsi Mareykan lagu dilaayo hamin kasta anoo hamin kasta la garaacayo anigoo quraanyo la igu fadhiyay anoo duud cidiyaha laga galiyo mas'uul aan jiifanayay macnaha dhowr iyo 10 maalmood mas'uul aan jiifanayo bahalka intuu galay ilaa iyo lugaha jilbaha uu yimid waligay dib uga ma degin hadda maanta cabsi dib uga degayo marka nimanka programkan wado dhahay ninka hal cabsiyo wada waa inaan dhinto baan uga har arrintaas wax kale oo iga reebi karay ma jiraan iyo Allah subhanahu wa ta'ala qadartiisa kale ugu dhacdo waxaan marka shacabka Soomaaliyeed la wadaago waa idin jeclahay barnaamijka tala ku nool haddii maanta anu aan tago line-ka tala ku nool qof ku soo jira oo diyaar inuu position ka soo galo marka hatta waxa fiican inay iyagu laftirkooda ma fakarino isma dhihin warninkaani ma kaligiisa ama sidada la socdo waxaan rabaa marka inaan kaga tago arrintaas iyada ahi dhambaalka aniga aan wado ee Soomaaliyeed ee ah in la difaacdo diinteena iyo dalkeena iyo dadkeena
وحوي وارن مقدسة وأنا أرنا المركارين إذن كان أساس أن كربا سفيان شيخ أحمد ويه وإذن سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبض بانسكو نهاي arrintaasna ha laga hadlo ha la difaaco dadka dacaayada suuqa wado Sufyaan Saan weeyo oo Mareykan laga soo tarxiilo oo war Mareykan waxa uu naqaan male anaga la faheena aan wala soo carnay in la ku dilo 17 qof aan xabsi ugu galnay anaga laba ka noqday yaryarmaan iyo aniga marka wax weyn aduu kuleeyahay ani wax weyn meelaha waxa wax weyn la diinta islaamka iyo dalkay marka sidaas ay inoo ahaanaysaa saasan isku ognahay anagu ma gambanayno قدرتوا مالنتي نوتي مادنا هذا والسلام عليكم وحويا تيف عندنا نصعنا إلهنا وحن كرجيننا إلهنا كبر يا أرنتاني إنه نقطة عباده إلهي إنه أسيب سيو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.